maanqaad media haddii ay ku dhaafaan muuqaaladan meesha gaduudan subscribe si sulkadaada ku sii karin farta aayar jag ku sii sidoo kale gambaleelka ee dhawaaqaya jagsi si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee uu soo gaaro muuqaalada iyo barnaamijyada xiisaha badan kulan wanaagsan ku soo dhawaada maanqaad media caalamka iyo wararka ugu waaweyn ayaan idiin soo gudbinaa xiliyadan oo kale qodobadan idiin haynana waxaa ka mid ah diyaarad ay la socdeen dad rakaab ah ayaa ku dhacday waddanka Mexico 5 qof oo isku qoysa ayaa la xaqiijiyay inay dhinteen dablay hubaysan 3 askari oo ka tirsan booliiska waddanka Ciraaq ay ku dileen fariisin ay ku sugnaayeen waqooyi galbeed Kirkuk dalka Ciraaq waxaan kaloo idiin haynaa dhul gariir ruxay saaka aroortii waddanka Papua New Guinea magaalada Port Moresby meel 250 kilomitir u jirta ayaana dhul gariirkaas uu dhaqaajiyay dhulka waxaan kaloo idiin haynaa madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro wuxuu ciidamada ugu baaqay in ay midoobaan si laga hortago isku dhacyada iyaga ka dhanka waa talaabo dhif iyo naadir ah in Bahrain iyo Qatar ay telefoonka hogaankooda ku wada hadlaan marxabeynta ramadaanta ayaana ay wadaageen ra'iisul wasaaraha waddanka Bahrain isaga oo la hadlay amiirka dalka Qatar qodobada kala daawadayaal waxaan idiin haynaa warbixin cusub oo ay soo saartay qaramada midoobay waxay sheegaysaa in dadyo fara badan ay barabaxeen guriyahoodiina ay kaga carareen xaalad cimilo oo soo wajahda awgeed 1800 oo bog warbixin ka kooban oo la soo saaray ayaan idinku soo gudbinaynaa nuxurka guud qodobadaas waliba qodobo kale ayaan idinku haynaa qaybaha dambena waxaan idiin hayaa muuqaalan isleeyahay dad badan 10 ayuu u noqon doonaa eyga haddii qofka islaamka ah uu meesha uu ka taabtana 7 jeer ayay diintu islaamka noo banaysay in la nadiifiyo oo la daahiriyo tiyo ay jirta hadana waxa la bari karaa oo rabaayada laga dhigi karaa caawinaada dadka muuqaal ka yaabin doona ayaan idiin hayaa aqliga waane karaamo watiyo wakara cilmi loo waqtigu la socda barnaamijkan waxaa isku soo duway idinlana socodsiinaya anigoo xasan xayi cabdullaahi mar kale iyo maanqaad media caalamka ku soo dhawaada waa hagaaga daawadayaal waa 7 bisha shanaad ee May 2019 ku soo dhawaada qodobadaas aad ararta ku maqasheen iyagoo dhameystiran aan ku bilowno laba wariye oo ka tirsanaa wakaalada wararka ee Reuters ayaa xabsiga laga sii daayay kuwaas oo xoriyadooda dib u helay labada wariye ayaa 500 oo maalin xabsi ugu jiray dawladda Myanmar ilaa bishii September ayaana jeelka ay ku jireen min 7 sano ayaana garka loo geliyay xilligaas inay ku xadgudbeen oo warar aysan dawladda raalli ka ahayn baahiyeen ayaana lagu eedeeyay saxafiyiintan Reuters u shaqeynayay waa loon oo 33 sano jir ah iyo Kiyowso oo isaguna 29 sano jir ah ayaa la arkayay muuqaal la duubay iyaga oo faraxsan isla markaana caalamka dadkii kala joogay ee taageeray soo deyntoodana ka qayb qaatay ay u mahad celinayaan ila diblomaasiyadeed iyo ururada xuquuqul aadanaha ayaa dadaal badan u galay sida loo soo deyn lahaa labadan saxafi waa loon iyo waliba Siyo oo labaduba ah saxafiyiinta la sii daayay ayaa aroortii Talaadadan maanta ahayd dawladda Myanmar waxay sheegtay in laga qayb dhigay 6520 maxaabiis oo ay Amnesty International u dooday xafiiska madaxweynaha waddanka Myanmar Win Myint ayaana lagu cadeeyay in kumanaankaasi maxaabiis la sii daayay oo cafis loo fidiyay tani waxay qayb ka tahay baa la yiri cadaadiska iyo waliba dhibaatooyinka ay wariyeeshani ku shaqeeyaan iyagoo qaarkood naftooda ku waayay waxaana 7 May 2019 la xaqiijiyay oo maanta ku beegan in la sii daayay saxafiyiintan oo la sheegay in ay ahaayeen kuwa hooshooda iyagoo ku guda jira xabsiga u galay
730,000 oo rohingaha muslimiinta ayaa barabixidda howlgalka ay waddanka Myanmar kaga soo carareen ay wariyeeshan warbixino ka soo tabiyeen taas oo ay ka xumaatay xukuumadda Myanmar waxaana dadkaas ay badankood u carareen waddanka Bangladesh. waa dhif iyo naadir in Bahrain iyo Qatar madaxdooda ay telefoon ama waji ka waji isku hor fariistaan tan iyo 2017 xiriirka marka uu xumaaday u dhaxeeyay wadamada Khaliijka iyo Qatar. Ra'iisul wasaaraha waddanka Bahrain ayaa telefoonka kula hadlay amiirka waddanka Qatar isagoona ugu hambaliyay bilaabashada bisha Ramadaan taas oo la leeyahay xukuumadda Doha waxa ay ka gudoontay salaanta marxabaysan ee Bahrain kaga timi. Khalifa bin Salman Al Khalifa oo ah ra'iisul wasaaraha waddanka Bahrain ayaana telefoonka muddo daqiiqado ah kula hadlay aroortii hore ee Talaadan maanta ahayd amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani waxaana hadda muuqanaysa isku soo dhawaanshiyo ku aadan arintaasi. Sacuudi Carabiya, Imaaraadka, Masar iyo waliba Bahrain ayaa ka mid ahaa wadamada 2017 bishii Juun xayiraadda cirka iyo dhulkaba ku soo rogay waddanka Qatar. 2013-2014 intii u dhaxaysay xiriirkooda waa uu soo yiri wanaagsanaanayay Qatar iyo waliba wadamada Khaliijka. hase ahaatee boqortooyada Bahrain ayaa la safatay 2 sano ka hor cunqabatayntii ay xukuumadda Doha ka wajahday wadamada Imaaraadka, Masar iyo waliba Sacuudi Carabiya. dibli hubaysan ayaa weerar waxay ku qaadeen fariisan ciidamada ay ku lahaayeen Kirkuk oo ka tirsan waddanka Ciraaq. waqooyi galbeed ayaana ay fariisinta ciidamada ku sugnaayeen xalay oo waqti dambe ciidamada la beegsaday. majalada Kurdistan 24 ayaa daabacday qoraalkan oo ay leedahay 3 askari oo ka tirsan ciidamada booliiska waddanka Ciraaq ayaa dhintay mid kalena waa uu dhaawacmay. xogtan oo la baahiyay maanta ayaa la sheegay in wadada isku xirta gobolada Kirkuk iyo Erbil in ay ka dhacday arbushaadaasi. ma cadda ilaa hadda cidda weerarkaasi ka dambeys xilli Ciraaq dawladda ka jirta ay sheegto in ay kal hore ka ciribtireen maleeshiyada dawladda islaamiga isku magacaawada ee Daacishta dalkaasi oo dhan. wararka ka imaanaya dalka Mexico waxay ku waramayaan in 13 qof ay ku dhinteen diyaarad ku dhacday waddankaas sida ay baahiyeen qaar ka mid ah warbaahinta dalkaasi oo soo xiganayay gudoomiyaha gobolka Coahuila ee mashaqadu ka dhacday. wararka ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan in 14 dhimashada ay gaarayso magaalada Las Vegas ee dalka Mareykanka ayaana la sheegay in diyaaradda ay ka timi kuna wajahnayd gobolka waqooyi galbeed dhaca dalka Mexico ee la yiraahdo Monterrey. buuraha tirsan dhinaca gobolka ee Coahuila ayaana la tilmaamay in ay diyaaraddu mar kaliya dhacday. 13 qof ee dhintay 3 waxa ka mid ah yihiin baa la yiri shaqaalihii diyaaradda 10 rakaab bay ahaayeen. faahfaahin rasmi ah lagama bixin waxa keenay diyaaradda inkastoo cimilada oo xumaatay la sheegay in ay ahayd diyaaraddaas mid sababtay inay soo dhacdo. dadka dhintay waxa ka mid ah baa la yiri ganacsade caan ah oo 50 sano jir ahaa magaciisana lagu sheegay Luis Octavio Reyes Dominguez iyo xaaskiisa iyo 3 caruur uu dhalay waxaana qoyskaas ay ku baaba'een mashaqadaas diyaaradda Mexico ku dhacday. diyaaradda dhacday nooceedu waxay ahayd Challenger 601 waxaana sameeyay shirkadda Canada laga leeyahay ee Bombardier sida ay baahiyeen qaar ka mid ah warbaahinta Mexico. waayahay saaxiibayaal daawadayaal gabagabada ayaan isla soo gaarnay bal markana muuqaalkii aan idiin sheegayay hordhaca ayaan idinla wadaagayaa. waxaa hubanti ah in dad badan ay la yaabi doonaan
waa ey oo la og yahay sida diinteenna islaamka ee muhiimka ah ay nooga warantay sida meesha uu qofka ka taabto 7 jeer in la iska daahiriyo nebiga noo sheegay. haddaba waxuu ka mid yahay eygu waxyaabaha xayawaanaadka rabaayadda lagaga dhigi karo oo wixii la baraa samayn kara. eygani ayaa waxa uu caawinaad u samaynayaa dadka, waxa uu badbaado u samaynayaa qofka dhibanaha ah, waxa uu saacidaad u qabanayaa qofka howsha ay ku badantay. balayla daawo. waa hubaal in dad badani aysan ka caqli yarayn eygaas lagu tarabiyadeeyey in uu dadka caawiyo xilliyada ay u baahan yihiin. guud ahaan daawadayaal intaasan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka maanqaad meediya iyo caalamka. anigoo xasan xayi cabdulaahi ayaa soo saaray iskuna soo duway idinlana socodsiinayey. inta aan wararkan iyo barnaamijyadan oo kale aan isku maqlayno iskuna arki doonno, sidaas iyo ammaan allah. عقلي وعنا كرامة وطير وكر علمي لو وقتي ولا صعدا maanqaad media haddii ay ku dhaafaan muuqaaladan meesha guduudan sabskaraab sii suulkadaada ku sii karin farta aayar jag ku sii. sidoo kale gambaleelka ee dhawaaqaya jagsii si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee uu soo gaaro muuqaalada iyo barnaamijyada xiisaha badan.